السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب ونسكفرنا شركة على كويرني تأتين علماء قرن كسومالان والكورة هذه أدبادكم هنقنا أجيبدا سواء جيبتين قصيقة على كويرني تمادان قصر محتوية يلا هواي نقعد حيونا كلنا كتشرنو. رهانتي marka la eego hawsha la ugu yeeray iyo hawshan hayno waa laba hawlood oo isku mid ah maqaasidu shariica marka la akhriyo waxa ugu horeeya in qofka naftiisa la ilaaliyo marka qofka naftiisa marka laga hadlayna waxa laga yaabaa inay noqoto kolba heer loo soo gaaro oo marka arintaas waa arin muhiim ah qaran ahaan waxaynu haynaa waa in qofka naftiisa la badbaadiyo in laga wada shaqeeyo hawlo badan baa la qabtay oo ka soo bilaabmay muxuu ahaa in aynu wadankeena cid soo galayso la socono inaynu xarumihii wax lagu daweynay diyaarino inaynu xataa la socono xidii xarunka aynu ku tuhunno oo imika aynu soo gaarnay heer aynu shalay shaacinay in laba qof ay jiraan oo xanuunka la xaqiijiyay inuu xanuunkaasi ku dhacay hadaba mar walba oo aynu xog helo waxaynu ku dareynay talaabooyin arinta aynu wax kaga qabanayno waxaynu ka soo bilownay dugsiyadii in la xiro waxaynu ku xojinay in meelaha la isugu imanay dadka laga wacyi geliyo waxaynu soo gaarnay imika haddana inaynu talaabo kala qaadno fulintii aynu ku jirno sideeba marxaladan cusub ee aynu u gudubnay oo ah inuu xanuunkii nala joogo maxaa nagala gudboon culimadii doorkeedu muxuu noqonayaa dhakhaatiirtii doorkoodu muxuu noqonayaa gudida qaran maxay noqonaysaa hawshoodii talaabada imika aynu qaadayna maxay noqonaysaa marka arrinta ugu muhiimsan aynu u wada joognaa taas weeyi haddaba adduunku wuxuu isku raacsan yahay cudur faafa marka laga sheekeynayo waxa la yiraahdaa chain buu maraa wuxuu maraa silsilad buu maraa cudurka faafa mar kastaba marka waxay yiraahdaan silsiladda haddaynu kala furno xiriirkii baa go'aya marka waxa lagu leeyahay ama dawladdu soo rogayaan curfew-ga ee lagu leeyahay dhammaan waa bando goobaha ururka hal la joojiyo maxay waxa weeyaan xididkii baa la goynayaa haddii marka la kala gooyo silsiladdii uu ku soconay bahalkani waxa laga yaabaa in bulshada in badan oo ka badan la badbaadin karayo ayaa kamid ah haddaba su'aashu waxay tahay innaga maanta levelkii wacyigelinta guud waa soo dhaafaynaa levelkii uu xanuunkii oo xaqiiqo ah oo dad uu ku dhacay aan haynaa jira markaa ogaada oo ida waa muhiime waxaa la sameeyey case tracing baa la sameeyey dibadna dabagal baa la sameeyey mutaabaca lagu sameeyey mutaabacadii lagu sameeyey dawladdu maanta wax badan bay ka ogtahay arrintaas dadka lagu sheegay meeshay mareen halkay wax ka cuneen meeshay fadhiisteen ciddii waa la wada garanaya maanta dabagal baa lagu wadaa wasaaraddii caafimaadka way shaqo tagtay badadkaasi in la kala badbaadiyo ayaa laga shaqaynayaa su-aashu waxay tahay markaa culimaduunka u taalla waxa weeyaan haddii qofka xanuunka laga helay ee sida loo daba socdaa uu masaajidkii ku tukado intee qof oo muslimiin oo shacbi weynihii mas-uulka laga ahaa ka mida ayaa dhibaatoobi karta weeyaan oo su-aasha meesha taalla weeyaan marka runtii doodaasaa la rabaa sidaan dareensanahay dawladdu inay furto weli waxaan qabaa waa nidaam xornimo badan iyo walaalnimo ku jirto adduunyada kale habeenkun bay dawladdu shirtaa go'aan bay soo ridaa laakiin in dadkii laga qaybgeliyo la yidhahdo warbalkaalaya arrinta nala eega an waxaan qabaa waa xornimo qeyral caadi ah waana sharaf u soo hoyatay xukuumadda somalilan sharafteeda runtii marka waxaan ku daraynaa mar kasta anagu haddaan dhakhtaranahay alaamtiro soo dhaaf baa taalla meesha shalay sheeku ahaa maanta araggii waan qabanay bahalkii waa la hayaa taladaan bixinaynaa mar kasta waxay tahay war niman yahow dal iyo dadba khatar baan ku jirnaa dal iyo dadba khatar baan ku jirnaa dadaalkaa la wado inaynu dhab u wada ajiibno waxaa la muuqataa maalintii la noqonayay mucaarad iyo muxaafid maalintii la noqonayay fikrad kale la qaadanayay maalintii qofku uu maslaxad shakhsiga ka fikiray way dhaaftay maanta waxaan ku dhaqmaynaa nidaam iyo amar in lagu dhaqmo weeyaan oo weliba toos wax loo kala qaato waa danteena maslaxadeena dalnimadeena ku jirta adduunyada dalkeena jaarkeena ayaa ugu dambeeyay Djibouti dhammaan dalka uu xiray waxaan ku khasbanahay markaa saddexdii muhiimka ahaa ee ahaa in la xidho maaskigii la xidho inaan soo fulino imika maanta waa ku khasbanahay inaan maaskigii la wada xidho haddii la awoodi karayo haddii xataa
stock lama hayaa leeyahay inta badan oo waxa laga yaabaa waxa yar la keenana in loo isticmaali doono wasaaradda caafimaadka iyo shaqaalaheeda ku hawlan la tacaalida arrinka la siyaa laga yaabaa laakiin inagu waxaan sameyn karaa initiative oo de waan tolon karnaaba inaan soo qaadaa qurux badnayde shalay adna noo keentay adna aadan baa noo keentay oo runtii qof mas'uul oo qiimo leh waxay noo keentay bacay wajiga lagu xidhnay bay noo keentay iyadana aliftay dawaar la tolo markii dambe quruxda waad yaabtaa qofka soo difaacayay wajhadiisa oo dhanba iyo wixii marka qofka kaaga iman karay marka annaka bahdii caafimaadku tala ahaan maadaama aynu kulligeen u heeganahay dadkeena sidii u badbaadi lahayn if ya akhraba inaynu gacanta isqabsanno oo idinkuna geestiina ummadii ka wacyigelisaan xaggii iimaanka idinkoo raacaya oo aad gacan xooga naga siisaan annakuna xaggii daaweyntii waxaanu qaban kari lahayn aanu qabanno oo marka dadkeennii inta nool aan badbaadino ilaa adduunka ugu jiran waxa ka dhacaya haddii taasi taa tahay waxaa noogu muhiimsan oo idii sheegaynaa annaku waxaanu ka niqaano dadkeenna marka loo eego dhinaca psychology-ga sida wax u sameeyaan dadkeena Soomaaliland markay xanuunsadaan inta badan waxay ku cararaan diinta islaamka iyo masaajidka iyo sheekh halkii aanu ka doonay qofkii hargka qabay amba xanuunka qabay inuu iman masaajid isagu wuxuu dareensay inuu waajibaadkiisa gudanayo waa shakhsi aadamiya waa naflay wuxuu doonay waajibaadka inuu guto hase ahaatee dhibaatada u keenayo muslimiinta kale tukanaysay waa garan kartaan waana waxaan ugu dhaca weeyay waa ogtihiin dadkeenu markay xanuunsanayo quraan bay akhristaan wala socotaan waa ogtihiin iyagoo xanuunsanaya ay masaajidka tagan u luudaan da iyagoo ah marka waxaanu doonaynaa maadaama cudurkan uu saf yahay oo hawadana uu kala qaadayo qof ficil uu kala qaadayo bal idinka hawshaasi sida wax nooga qaban lahaydeen ina ka fikirtaan cudurkan aynu maanta ka hadlaynaa ee adduunyadii oo dhan aynu ognahay inuu meel walba galay magaalo walba galay laga cabanayo laga baqayo dadkii gumaadaya waa cudur waxa kaliya ee lagu difaaca uu yahay ka hortag lagu difaaco wax kaloo lagu difaaca ma jiro waa in laga hortagaa weeye si wal oo cudurkaa looga hortagayaba waa in looga hortagaa weeye waxaynu ognahay maanta in dalalkii waaweynaa ee adduunka kaba soo qaad maraykanoo in ay ka baqayaan in 3 bilood ee soo socda in uu 2 milyan iyo 200,000 oo qof ka dilo markay ugu yar yihiin waxay leeyihiin 240,000 oo qof ayuu maraykan ka dilayaa ay leeyihiin sida kaliya ay iyaguna iskaga difaacayaan innaguna bilaaadmeena iskaga difaacaynaana waa la garanayaa waa macayin waa la ogyahay inkastoo fayraskan maanta cudurkan keenta ay cusub tahay haddana see u dhaqmaysaa waxay u eg tahay si fayrasyo hore oo naqaanay oo inagu dhacay oo bilaaadme ku dhacay u dhaqmi jireen bay u dhaqmaysaa marka khibradaynu haysanaa waxa weeyaan wixii fayrasyaha hore ay samaysay bay tana samaynaysaa fayrastii tan la midka ahayd ee ugu dhoweyd ee sidanoo kale adduunka u dhacday 100 sannadood horteed bay dhacday exactly 100 sannadood ka hor bay dhacday 1918 dagaalkii adduunku markuu dhammaaday ee dhacday 2 sannadood bay socotay 50 milyan ilaa 100 milyan bay adduunka ka dishay halkeena aynu joogno Soomaaliland inkastoo aynu reer guura ahayn inkastoo inaan magaalooyin waaweyn lahayn haddana waxa lagu qiyaasaa inay dishay 7% ilaa 25%. Waabanu iska yaran dad yar baynu ahayn haddana dad badan bay naga dishay siday noo soo gashana waxay ahayd askartii uu ingiriisku ka haystay ee la dagaalkii la gashay markay soo noqdeen ay berbere ka soo degeen ay berbere ka soo bilaabantay askartii kale uu isagu ka haystay uu Mombasa ka soo dejiira Mombasa ka soo bilaabay Mombasa soo maray Nairobi soo maray Addis Ababa soo maray inagana xageeda berbere ka soo bilaabay iyo Djibouti iyo ka soo bilaabay labadaba dad badan buu inaga laayay maanta cudurku wuu soo galay waa dhab waynu arkaynaa
mar hadduu ku soo galana mar haddaad aragto caradiisa yar haddaad aragto inta u hooseysay qarsoon ayaa badan qaraxii buu ku dhow yahay inuu inagu qarxo ayuu ku dhow yahay hadduu inagu qarxana ma qarax waxaan u jeedaa haddii mar keliya ay dad badani la soo dhacaan cudurkii la soo dhacaan innaga dhibaato gaaruu noo leeyahay waayo waxaynu iskaga difaacna ma lihin waxaynu iskaga daweyna ma lihin mar hadduu ku soo galay qof waliba wuxuu qaadsiin karaa maalintii 2 qof iyo badh kaasina 2 qof iyo badh buu sii qaadsiin karaa kaasina 2 qof iyo badh buu sii qaadsiin karaa adigoo iska joogoon islahayn bahalka kuguma jiro bimaad mar kaliya arkaysaa isagoo xadkiiba ka baxay marka waxaynu ka hadlaynaa waxa weeye wixii nala gudboonaa khaasatan waynu ka hadalnay mujtamaca waynu ka hadli karaynaa sida lagu joojiyo keliya waa silsiladaasoo la joojiyo waa anigu haddii aan qabo aanan sheekh khaliil gaadhsiin sheekh khaliilla aanu wasiirka cumar gaadhsiin cumarre aanu maxamed kaahi gaadhsiin sida keliya layskaga difaacayaa waa silsiladaasoo dijabinno weeye silsiladaa uu haysto xarigga ah ee xariggina bini'aadmi yahay inaynu joojinno weeye taasuu baynu iskaga difaaci karaa silsiladaasoo aynu joojinno marka culimaadiinka maanta aynu u yeedhnay ee ina hor fadhiya masalooyinka cudurkan uu leeyahay ina haysta ay jawaabtoodii iyaga looga fadhiyo ayaan doonayaa inaynu ka hadalno dad muslimiin nahay waxaynu nahay ummadihii dadyowgii ummadda islaamka ummatul islaam ku biiray kuwii ugu horreeyay baynu nahay taariikhdii islaamka ee lahayd daacuun ee lahayd dagaal ee lahayd gaajo islaamku wuxuu ka yeelay culimmadii garanaysa baad tihiin annaga dhakhtarnimadiina weydiiya laakiinse culimmadii garanaysay taariikhda dheer ee islaamku uu lahaa ee soo jireenka ahaa ee 1500 1400 ee sannadood aynu ku dhaqmaynay culimmadii baad tihiin cid inaga diinta islaamka inooga aqoon badan taariikhdeeda siiradeeda inaga haysa oo inaga xariifsan adduunka joogtaa ma jirto marka masalooyinka cudurkani uu leeyahay ee diinta la xidhiidha aynu doonaynaa inaad ka keentaan iyagu idinku inaad ka keentaan tafsiirta ka keentaan kow dhinac wanaag baa jira waa salaaddii waxaynu nihi cudurka waxa lagu joojinayaa nadaafadda weysadii waa ka kow taasi waa xaggii dhinaca wanaagga arrinta labaad ee timi waxa weeye jamcii aynu wada tukanaynay ayaa timi waa dhinacii kale jamcii wuxuu leeyahay de waa inaynu haddii uu jamcii inoo baxayo de waa inaynu isu dhowaanaa inaynu meel wada joogno masaajidkii isu wada nimaadno ayuu jamciina farayaa dhinacii kale maxaa jira markaa waxaynu ognahay meel wal oo la isugu yimaadaba hadduu qof keliya qabo in intaa 20 birre ee lagu jiro jamaca ay wada joogaan in ay iyaguna isqaadsiin karaan qof walibana uu qofkii kale uu tago gurigii markuu hoyo uu isaguna cudurkii qaadsiin karo marka waxaanu annagu idinka doonaynaa inaad noo fasirtaan oo noo sheegtaan maxaynu ka yeelaynaa salaaddii jamaca aynu ka yeelaynaa masaajidadii dadku isugu imanayeen iyaynaan warwareegin moogta waa sida ay xaalku maanta yahay wax laga baqa maaha maxaynu ka yeelaynaa waxa kalood eegtaan wuxuu ku dhacay amiirkii prince charles oo ingiriiska ma ahayn qof shakhsi oo dee caadi oo ina dhex socdo sideenna meel amiir meeriska jooga weeyaan oo aan xitaa dadka u galaya iska xadidan yihiin ayna dadkuna ku badnayn oo de gurigiisana kuwa celiilo sida guryaheenna dee aanan ahayn kuma jiro markaa wuu ku dhacay markaa taasi waxay kuu sheegaysaa khatarta uu leeyahay uu ku fidayo iyo inay dadku ku badbaadi karayn dee qofkii ilaahay ka badbaadinayuba ka badbaadiya arrintan laakiin waajibaadka dee ina saaran ee ama diiniyanba waa nafta aadamuhu waxa weeyaan ammaanay nagu tahay ma aha intu aan inagu leenahay markaa waa in laynaga xisaabini in moogtahay wixii dee ammaanadaasi sidaan u hayna iyo sidaan u samayn marka taasi masalada diinta ee ku saabsan dee idinka culimadii oo taa laydii sheegi maayo
marka waxaad arkaysaa cudurku xawliga ku faafayo marka inagoo de sideena kale dhaqankeena aad garanayso Soomaaliyeed ama walaal markaan salaanino marka la yiri de moogtahay hadduu qof salaamo taxiyad ka sii wanaagsan ku salaama haday ugu badan tahay marka waa inaad inagu isdunkaneeyo waxaasi marka arrimaha laakiin waxay keenaysaa taasi khatar fara badan oo ama dadkii kale ku imanaysa maadaama ay dhibaatadiina taagan tahay imika marka xawliga ku socdana ilaahay u baa xisaabi kara waa la estimate garay kara marka dadkeenuna waa population oo ilaa 4 milyan inteedaba oo waliba dhowr magaalo oo miyigiiba iska baabay dhowr magaalo ku urursan oo haddaad density population density-ga adeegto magaalada Hargeysa iyo Boorame iyo Burco meelaha adeegto hadday yaabayso sidii dadku garbaha isku hayo marka hadduu soo golay waxa laga yaabaa inuu xawliga kaga badan yahay ba kii hore ku socday marka ilaahay idin garab galo idinkana waa anaguna wixii wacyiga waan wadaynaa idinkuna tiini ayaa la idinka filayaa insha Allah ilaahayna idinku guuleeyo lillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ilaahay baa mahadle marka xigtana waxaanu runtii u mahadnaqaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada iyo dhammaan dhakhaatiirta iyo mashaayikhda halkan kulankan ku arrinsanaya ee isugu yimi aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa yeedhiddaa noo yeedheen waxayna muujinaysaa in xukuumadda iyo culimada inay isku xidhan yihiin ilaahay baana dee yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu arasuula wa uli lamri minkum marka hore xanuunkan innagu dad muslimiina baynu nahay waxaynu aaminsannahay inuu yahay min qadaa'i illaahi wa qadarihi arkaantii iimaanka ee 6 ahayd mid ka mid ah ayaa waxaynu aaminsannahay wixii ilaahay inoo qadaro inaynu raalli ku nahay marka ugu horeysa oo waa qofka muslimka waxa uu dheer yahay qofkii gaalka ahaa caalam islaami waxa ka soo baxay golayaashii fiqiga wasaaradihii awqaafta اللهم صل على محمد هيئات كي علمي حمبارسنا سيده هيئة كبار العلماء ومصر هيئة كبار العلماء والسعودية العربية هي أردن قطر كويت سوريا تركيا لما أن دولة الإسلام كوردمي انت سبوا حيثو صارين قاموا أي ليهين أي مدة قديجيان إن أنت جماعاتك قوامها عبادة اللي يسوي ماضو إلا تشوتشيو سي مرحلية يضل عبادة إلا لها إن تشوتشية عبادة عندنا ما أورن تشوتشية لكن وحلا يري ما دام حنون كانوا كفها فيو سداس فقهاء العالم الإسلامي وحي رادين قريا إنه كل عبادة يسنو ساجدة أن يسكده إنه ما دام أو يهم الساجكو كأو قفك كلا ديك كو قبنا أيو لقى يابو لبض قف sankoodii afkoodu inay isu jiraan wax fartayda ka yar labada qof yaani taaka ka yar oo kar markuu tasbiixda akhriyo kana akhriyo haduu mid kamid xanuunkii qabo automatically way kala qaadayaan ama meeshii buu kaga tagaya mid kalena waa ku tukanaya marka horta diinteenu diin jaamid oo meel ku engegtay maahe waa diin fiqigeedu fi kulli casri waqti kasta ula socon karo kaliya waxa la rabaa أن كل وزارة ديني بأينو شوكت وزارة الوقاف أو علماء دمان هوست مع دا وزير كيجي بفرديا إن ده وزير كحلكي سيتهاي إنه علماء يسوي يارو أن جد دي فتوى دا شوكتا وحي هاد بالله بعده مركز خاطيرته أي حديان ضرر كي بعتدا ومضى كل هذا هاي رمان نوع عنو كلاهي علماء دون فتوى دي بيسوا صارية لكن أنا جو أنا هذا فتوى دي بينين waxaynu samayn karaa si tadriijiyo oo maartay ama aynu safka aynu mitir isu jirsano ama aynu masaajidada nidhaano muddo inta xanuunkan faafayo aan xidhno kulli waxa soo dhawaarimo inay wasaaradda awqaafta ay iyadu hawsha culimada kala shawrto kadibna wixii laga badin waayo ee fatwa ah ee dadka lagu ilaalinayo marka ay xaqiiqa ka soo baxdo bulshadeena si gaar ah gudidiina oo hawl badan baa qabateen مثلا واحد نفسنا وحبرشدي
waxaanu fasaxnay jaamacadii macalimiintu wax ka dhigaan jaamacadaha waxaanu fasaxnay macaahidii laakiin dadkii halkay tegeen iskuuladii waan ka tegeen jaamacadii waa ka tegeen waxbarashadii waa ka tegeen laakiin dadka wax fadhiyaan dee makhaayadaha dadka waxay fadhiyaan hodheelada intaan isku jirno iskuma jiraan bulshadana waa bulsho ka duwan weeye marka waa inaanu eegno waynu soo fadhiisinay laakiin halkay tegeen waxaanu ka hadlaynaa caafimaad iyana caafimaadkii la talo xanuunkan sidiisaba jaynuu ka dhacay oo bariya maantana maraykan baa aw galbeeda iyo kanada yaa ka cabanaya barnaamijka la naga sugayo gaar ahaan la soo hadal qaaday masaajidada iyo wixii laga yeelayo caalam islaami maanta 3 wada ayay mareen qolooyin gabigiisaba xidhay qolooyin uu furan yahay qolooyin qaatay taladii ilaahay digidii waafajiyay markii horeba oo ah waxa weeye aqliga saliimka ku shaqayseen in suuliyada la xidho in haddii la dhaaway weysooyinka la xidho masaajidka xilliga salaadu la furo talada badankooga waa la tixgeliyay 12 toban la furay masaajidada badankooga waana laga dareeraa wixii tale kale ka dambeeyana waxa haday sharci tahay waxaan jecelahay inay ka soo fusho culimada in la oran guddi heer qaran iyo masaajidada xidhay in masaajidada hadii ay timaado heerka la gaaro in la yiraahdo fatwa ka soo baxday wasaaradda awqaafta iyo culimada yaa soo jeedis waan raali hada waan dheeriyay hadalka jazaakumullahu khayran sallallahu sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam arrimahana saa uu sheegay Sheekh Ciise Dr. sheegay culimada islaamku meel kasta ay joogaan arkan uu saameeyo way ka hadleen oo fataawo ka soo saareen oo kuladay ka yeesheen tixraac bay runtii iyada qudheedu keenaysaa inaguna aynu markaa yacni ijtihaadkeena iyo duruufaheena iyo xaalkeena la eegno halkaa waxaan ka soo jeedin lahaa waxaa habboon maradaad u yeedheen culimadii oo maanta ay saragteen oo ka weynoo tahay kulankani kulamo kale inay culimadu isku arkaan oo arrintaas si fiican ay u soo naaqashaan ma aha sidaa maanta yacni ka hortagga iyo kala fogaanshaha iyo jamaca masaajidka kaliya ma aha arrintu sidaa la sheegay waxaa laga hadlayaa qofka xataa sidee loo daweynayaa sidee loo aasayaa sidee loo meydhayaa waxaasoo dhan waa howlaha haddii ilaahay keeno loo baahan in wax laga sii ogaado marka waxaan kusoo taa qodobka waxaan odhan lahaa waanu qaadanay fariintiinii waana ku mahadsantihiin is arag iyo wada tashi in culimadu isu timaado ayaan soo jeedin lahayn oo in halkan go'aan ku qaadan laakiin ay dib ka soo baxdo go'aanka culimada iyo wasaaradda awqaaftu diinta awqaaftu waxay la tahay mar haddii kiisaskii ugu horreeyay maanta laga helay dalka waxay la tahay arrintu inay sidii hore ee dibicsanayd aanay noqonin si adag loo wada shaqeeyo si adag loo wada la isugu yimaado tala midaysan la yeesho wacyigelin joogto ah la yeesho anagu waan ku bilownay masaajidada saddex jimcaha ugu dambeeyay ma afarta jimcaha ugu dambeeyay nin walo khadiibiba masaajidka uu joogo runtii mawduucaas uu ka hadlay anu masaajid baan khadiibka afartii hadda ugu dambeeyay jimce wax kale kama hadal kule culimaduna waa qaaran waaba iga horreeyay waaba la soo ognahay waa wacyigelina waa la hadalaa waa waajib diini oo culimada saaran weeye laakiin fariinta midaysan ee ay ka midaysan yihiin dhakhaatiirtii iyo culimadii iyo guddidii loo xil saaray hawshan ayaa culays runtii ay tahay inay iyadoo isku duuban ay keenaysaa waxaan odhan lahaa aan wadajir ku shaqayno diyaar baanu nahay ummadda runtii naf iyo maalba waa huraynaa horena waa ugu horaynay iminkana hawlaheena innagoo isku duuban inaynu qabsanno oo wixii tallaabo la qaadaya baan isla ogaano aad baanu diyaar ugu nahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu shirkana wuxuu ahaa shir loo baahnaa in la qabto maxaa yeelay diinta iyo dawladdu waa towaan baa la yidhi marka addiinu wa dawlad towmaan ma kala maarmaan diinta iyo dawladdu dawladdu haddaanay diin lahayn dee qiimo ma leh diintuna haddaanay dawlad haysan qiimo ma yeelas marka waxa weeye waa jira cudurkan laga hadlayaa waa aafaan samaawiya oo alla kale weeye afadaa waxaa lagaga bixi karaa dadaal weeye dadaal baa lagaga bixi karaa alcilaaju khayr alwiqaaya khayr min alcilaaj ilaalintu iyadaa ka khayr badan daweynta waxaa ka khayr badan qofku dhaco la daweynayo ilaalintaa ka khayr badan marka caynkaa tahay in lagu dadaalo waxa lahay wixii ilaalina in lagu dadaalo wax shay munaasab oo meesha ku jira weeye waxaana weeye hawshan imanka laga hadlayo masaajidada laga hadlayo waa hawl ballaaran weeye hawshaa ballaaran waxaa loo baahan yahay in shirar kale la qabto
la isugu yimaado imaamayaasha iyo culimmada inta muhiimka loo yeedho laga wada tashado ayay u baahantay markaa la soo saaro go'aan wada jira oo ku hogaaminaysa wasaaradda hogaaminaysa in la soo saaro markaa u baahantay markaa waxa weeye qoladan ka shaqaynaysa ilaa madaxweyne ku-xigeenka ah ee golaha wasaaradda ah ee dhakhaatiirta hawshii aad baa u shaqayseen hawl weyn baa qabateen waxaanu leenahay allah idinka ajirsiiyo idinka fafiruu ila allah xagga allah u carara ayaa maanta taagan inaynu xagga ilaahay u cararno qur-aanka akhriskiisa amar ku bixisaan haddaa guddan qaabsan tihiin fadan samaawiga oo qur-aanka akhriska la akhriyo ilaahay la bariyo ilaahay inuu naga sarfiyo oo inaga qaado waa mid loo baahan taasoo mid meesha ku jirta weeye halkan dawada dadka qaar moodayo inaynan diintu ayna ogolayn ama si kaleba loo fasirayo diintu dawada way ogoshaa dawadu diinta way ku jirtaa ama diin ha la isku daweeyo ama dawo kaleba ha la isku daweeye aayaddan qur-aanka waxay tidhaa fafiruu ilallah kolkay wax yimaadaan xagga ilaahay u carara ayaa aayaddaasi tidhaa kolkaa xagga ilaahay u cararkii baryadii way noqonaysaa oo ilaahay baryo oo xaggaa ilaahay u carara way noqonaysaa wixii daawe iyo wixii danahee kale wax faa'iideynayana way noqonaysaayoo de waa xagga ilaahay inuu cararo kolka dawada la samaynayo ruuxii islaamha qalbiga wuxuu ku hayaa dawadani inuu ilaahay soo dejiyey oo waxaan la sheegayo ilaahay uu wixii cudurahoo dhanba waata la yidhaah wuxuu loo soo dejiyey dawaa loo soo dejiyey kolkaa dawadu saasay diinta ugu jirtaa waxaa kaloo iyaduna dee aynu garanaynaa oo aayadduba ay ku caddahay baryada ilaahay in la baryo oo wixii yimaadaba la yidhaaho ilaahay oo waxaa baal naga mari la yidhaah oo kuway ku dhacdayna loo duceeyo kuwa kalena looga duceeyo waa wax meesha ku jiro weeye kolkaa innaga oo labadaba sidaa u ictiqaadsan dawadana ha loo dadaalo oo dadka cilmigeeda yaqaanow waad ku mahadsan tihiin aad iyo aad baa wixii tabar ah loo wadaa xataa fariimahan la isu daraya ee goor walba joogtada ah ayaaba ka mida dawadii kowba ka sii ah goor walba tilmaamaha sidaa yeelada ayaaba kow ka ah kolkaa waxaa aada u wanaagsan in sidaa aayaddu ay sheegayso labada dhinacba wixii dawaana xagga alla loo cararo wixii baryo ilaahay ee kalena xagga ilaahay loo cararo labadaba ayaa meeshii inagu wanaagsan sidii sheekhii yidhi ma qadarka ilaahay baad ka cararaysaa ee yidhi qadarka ilaahay baanu ka cararaynaa qadarka ilaahayna waanu cararaynaa de waa sidii oo kale taana ha la badiyo ilaahay baryadiisana ha la badiyo waa lagu jiraayo culimmadu masaajidda way ka hadashaa qunuuddii baa la aqriyaa qunuuddii oo masaa'ibaha kolkay yimaadaan ilaahay laga baryo ayaa la aqriyaa ducada kale ee sida kalaa baa loo aqriyaa taana ha lagu dadaalo tanna aad iyo aad baan kulankan aynu isu nimid iyo aad baan idinku mahadinaynaa soo abaabulka aad soo abaabusheen ilaahay baanu ku mahadinaynaa idinkuna waad ku mahadsantihiin dadaalkaana ha la sii wado dadaalkaana ha la sii wado hadal halkan laga yeedhiyey oo ahaa in culimmadu joogto ahaato oo had iyo jeer isu timaado oo wasaaradda iyo meeshii lagu kulmaya lagu kulmo oo arrintaa goor walba ama allabari ha noqoto ama wax iska weydiinba ha noqoto iyo dadkoo lagu shajiciye taasina masaladaasina aad bay u fiican tahay iyadana insha allaahu halaynoo abaabulo waata culimmadaa si fiican uga hadashay anigu ducada unbaan intaa dambe ku khatimiye bismi illaahi alxamdu lilah hanaau lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu aleyh wasalam allaahuma caafina can balaa'i dunyaa wacadaabi alaakhira yaa da aljalaali waalikraam ilaahay masaa'ibaha la sheegayo
iyo wixii masaa'ibahee ilaahay ibni aadamka u soo dejiyeyba kolkay wax sameeyaanba waxaa la yidhi ibni aadam kolkuu dembi sameeyaba ilaahay cudur cusubna wuu keenaaye ilaahay waxaa haynaga daafaco ilaahay hayna baal mariyo